shir ay maanta ku yeelatay beesha absame magaalada Gaarisa ayaa waxa ka soo saareen bayaan ay u jeedinayeen dawladda Soomaaliya. Shirkaan ayaa waxa ka soo qayb galay salaadiin ugaasiyo nabadoono odaya aqoon-yahano dhalinyaro iyo haween waxayna ku taageereen maamulka Jubbaland iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxayna soo saareen bayaan ka kooban 10 qodob oo ay dawladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay u jeedinayeen dadka goobta ka hadlay. waxaa ka mid ah ugaaska beesha absame ugaas Axmed ugaas Cali oo ducada kulanka markuu furay kadib sheegay ahmiyadda kulankooda. waxaa sidoo kale ka hadlay mid ka mid ah aqoon-yahanada beesha absame Cabdixiish. waxaan u sheegaynaa Soomaali weyn colaad in lagu kala adkeen colaad wiil baa ku dhintaa wiil kuma dhasho. waxaan u leenahay jubbooyinka ama Soomaali meel kasta ha joogto meel kasta calan baa ka lusha wixii meeshan calankeeda loo diiday annagu ama Soomaalida kale ay ugu xayso ma naqaano. waxaanu leenahay Soomaali colaad way ka soo daashay wiilasha yaa colaad loo horseedin gabdhaha yaan colaad loo horseedin horumarka yaa colaad loo horseedin. qodobada bayaanka ayaa waxaa ka mid ahaa in dawladda Soomaaliya ay qaadato eedda dagaalkii ka dhacay magaalada Kismaayo. waxaa sidoo kale ka hadlay aqoon-yahan Cabdullaahi Amiin. jeedada halkan aan maanta isugu nimid waxa weeyo taageerada horta koowaad ee aan siinayno ciidamada Kenya ee ku jiro gobolada Jubbooyinka oo aan taageersanahay arrimaha lagu amaanay ee adduunka dhan uu ku amaanay ee ah sida geesinimada xilkasnimada ee ay u hagaajiyeen oo soo baxeen awoodii ay lahaayeen iyo waajibaadkoodii ay u fushadeen. dadka kulanka isugu yimid ayaa waxay dawladda Soomaaliya ay ka codsadeen in ay raaligelin ka bixiso eedaha ay u jeedinaysay dawladda Kenya. waan ku faraxsanahay inaan Soomaali weyn aan baaq nabadeed u dirno dhibaatooyin aan lagu doorsan karin colaad aan lagu doorsan karin haddaan nahay annaga reer Gaaris hooyooyinka magaalada Gaarisa haddaan nahay waxaan ku hurudnaa nabadda. mimi jina langu naitwa Hassan Sheikh Ali Gele. mimi ni mtu wa Kenya. uko hapa kuunga mkono Jubbaland na kuunga mkono askari jeshi ya Kenya ya AMISOM ambao wako Jubbaland ambaye wamesaidia wa Somali wa Jubbaland. gabagabadii shirka ayaa waxa laga akhriyay bayaankii beesha absame oo ka koobnaa 10 qodob. Maxamed Ciise Honkebel TV Gaarisa.